Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Juba Institute of Professionals for Intermediate English course. ومادتنا 4000 session English 1 book 1 وانا 10 سنين تمنات وحنا بلاونا البيج ككونتر iyo todobo. عشان ما كلمتك waxaan perhaps waxaan la'alla perhaps waxaan la'alla waxa dhici karaan kale. Perhaps is when is used when you say that something could happen waxa uu dhici karaa kale. Waxa lahaa perhaps isticmaala. Tusaale hadii kartaa perhaps I will eat an apple for lunch. Perhaps la'alla I will eat perhaps waxa laga yaabaa I will eat an apple inaan cuno tufaax for lunch qado. Erey kale barayno marka ereyga waa adba. Erey kale barayno waxa weeyaan present wax wanaagsan ama fiican oo ku raaxaysato. Wax wanaagsan ama fiican oo ku raaxaysato ayaa waxa la present. Erey kale barayno marka waxa weeyaan present waxa la wax wanaagsan weey. Wanaagsan if something is pleasant shayga haduu wanaagsan yahay you enjoy it ku raaxaysataa aad u wanaagsan weey. The character had a pleasant look on its face. The character jilaagi ama qofkii la dilay had a pleasant look aad ayuu u qurux badnaa on his face wajigiisa. Marka ereyga pleasant marka saas weeye pleasant waxa la wax fiican ama wanaagsan you enjoy. Pleasant is something you enjoy it wa waxaad ku raaxaysanayso. The character had a pleasant look wuxuu lahaa aad buu u qurux badnaa on his face wajigiisa. Ereyga kale aan maanta barayno waxa weeyaan ereyga loo yaqaano prevent waa ka hortagid waana verb. Prevent waa verb oo waa ka hortagid. To prevent something is to stop it from happening waxa inuu dhaco in laga hortago weey. Waxay the handcuffs waxa la fashion katinada ay askartu dadka gacmaha kaga xiraan waxa la handcuffs. The handcuffs katinadi prevented me ayaa iga hor istaagtay from moving my hands inaan gacmaha iga dhaqaajiyo. Marka handcuffs waa bahal katinada katinada dadka gacmaha looga xidho weey. Erey kale barayna waxa rock waa dhagax. Rock maxaa la dhagax weey ama wixii adagna waa la dhahaa rock. A rock is a hard thing in the dirt. Waa wax adag oo wasaqda ku dhex jira ciidda. I stack rocks dhagaxaantii baan iskor saaray on top of one another mid kale ayaan kor saaray weey. Erey kale waxa weeyaan waa safe oo waa badbaadin. To save something is to keep it from being hurt. Waa inaad waxyeelada ka ilaaliso ayaa waxa la dhahaa safe. I want to help save the world. Waxaan rabaa in adduunka I want to help waxaan rabaa inaan caawiyo to save the world in adduunka badbaadiyo. Marka safe waa badbaadin. Marka ereyga macnaha safe waana verb ficil weey. Ereyga step asalka tilaabo la dhahaa laakiin hadda tilaabsasho weey waa verb. Step waxa weeyaan waa tilaabsasho ama tilaabsi. To step is to walk. Be careful is ilaali buu yiri when you step markii aad soconayso ama aad tilaabsanayso. Erey kale maanta barayna waxa weeyaan still wali weey waa adverb. Still waxa weeyaan adverb wali. Still is used when you say something still is used when you say marka that situation keeps going on wixii wali waa socon marka leedahay. Still is used when you say that the situation keeps going on waxaas way socdaan marka leedahay ayaa still dhahaa. They are still waiting in line wali safka ay ku jiraan to get tickets marka still wali they are still waiting in the line kay ku jiraan to get tickets inay ticket helaan. Ereyga kale waxa weeyaan test waa dhadhamin. Test waxa la dhadhamin. A test is the flavor waa dhadhanka. Hadda test dhadhan weeyaa noun way. Dhadhamin oo verb na way tahay. A test is the flavor waa dhadhanka something makes in your mouth. Dhadhanka shaygu afkaaga uu ku reebo yaa waxa la dhahaa flavor. Ma garataas waxa la dhahaa flavor. The taste of the fruit dhadhanka miraha was sweet u macaana. Erey kale waxa weeyaan throw waa tuurid waa verb. To throw something is to use your hand to make it go through the air wax markaa tuurto weey. The pitcher waxa la ciyaartoydan dheesho baseball ka mid kamid ah. The pitcher can throw the baseball very fast. Aada ayuu dhaqsaay u tuuri karaa. Erey kale waxa wave noun markay tahay waa mawjad. Soo kale gacanta markaa saa u ruuxdana waxa la wave baa la verb markay tahay. A wave is a line of water that moves higher than the rest of the water. Waa mawjad. A wave is a
is a line of water that moves higher وموجودها than the rest of the water بيها كر كعه أيها على wave. The water was filled with a large blue waves. The water بيه was filled with a large blue waves موجودة وين أيها كبوح blue.